Cali Dheere iyo Mahad Karatay dooni ayay halkan ka raacayaan waxayna u baxsanayaan dalkaasi Yemen waxaana qorshahoodu yahay inay ka cararaan ciidamada militariga Soomaaliya ee xilligan kaabiga ku haya degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud waxaan idin la wadaagi doonaa xeebta Gaan ee magaalada Ceeldheer ku dhow oo ay maleeshiyaadkii iyo sidoo kale saraakiishii argagixisada ee ka dagaalamayay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya 15 sano ee la soo dhaafay ay isugu tageen ciidanka danab ee militariga Soomaaliya oo xaqiijiyay xogtaasi iyo sidoo kale tirada horjoogayaashan oo la xaqiijiyay iyo muuqaalo daroon ah oo ay duubeen kaamirooyin ka qarsoon xilli xeebta ay buux dhaafiyeen khawaarijtii ugu badnayd oo hogaamiyayaal ah waa intee tirada khawaarijta doonaysa inay ku baxsadaan doonyaha iyo wadan caan ka ah dalalka adduunka oo qayb ka ah samata bixinta horjoogayaashan iyo doonyahan oo lagu arkay calanka wadan Carbeed oo si dhow ula shaqeyn jiray argagixisada haddaba halkan ayaad ku daawan doontaan dhammaan macluumaadyadaasi waa kee wadanka Carbeed ee la shaqeeyay argagixisada dhammaantiin muuqaalkan si degan u daawada dhammaantiin like inoo saara hal door media subscribe saarta gambalaalkana furta si aad halkan ugala socotaan xogaha maalinlaha ah ee aynu ku baahino kuma hasanadeen isku soo laabasho wacan saacadihii ugu dambeeyay ciidamada militariga Soomaaliya ayaa dhowr jooga ka weeraraya magaalada Ceelbuur ee istiraatiijiga ah ciidamadii dhawaan ka baxay magaalada Dhuusamareeb oo sii maray Wabxo ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen miinooyin waaweyn oo argagixisadu ay qorsheynayeen inay ku weeraraan ciidanka militariga Soomaaliya dhanka kale ciidamo Itoobiyaan ah oo ka soo tagay gobolka Hiiraan ayaa iyagana waxa ay sii mareen degmada Maxaas iyagoo markaasina dhankaasi doonaya inay ka hareerayaan magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya argagixisadii 15 sano ee la soo dhaafay ka dagaalamaysay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa quus taagan waxaana loo xaqiijiyay afayeenkii guud ee xarakada Sheekh Cali Maxamuud Raagi Cali Dheere iyo sidoo kale Mahad Maxamed Warsame oo ku magac dheer Mahad Karatay Fuaad Shongole iyo sidoo kale dhowr kale oo horjoogayaal ay kulan xasaasi ah qaateen telefishinka qaranka Soomaaliya iyo idaacadda telefishinka qaranka Soomaaliya ayaa waxa ay markaasi xaqiijiyeen in la hayo codadkii ay taleefanada ku wada hadleen horjoogayaasha waxa telefishinka qaranka Soomaaliya uu xaqiijiyay inay taleefanka markaasi ay dansadeen markii ay isku yimaadeen balse waxaa la maqlay codad kooban oo ay shaaciyeen telefishinka qaranka Soomaaliyeed inuu yahay Cali Dheere iyo sidoo kale Mahad Karatay inta aysan ka bixin magaalada Ceelbuur waxay wada hadleen Mahad Karatay iyo Cali Dheere isagoo Cali Dheere uu yiri war xaaladdu way adag tahay dhankaasi iyo Yemen ayaynu aadaynaa Mahad Karatay ayaa waxa uu yiri hawraarsan iyo gudoon iyagoo ama baxay xeebta Gaan oo ku dhow magaalada Ceeldheer halkaasina waxay qorsheynayaan inay ku baxsadaan diyaaradaha drone-iska ee Mareykanka iyo Turkiga ayaa dul heehaabaya xeebaha waxaana la baarayaa sidoo kale markaasi ay qorsheynayaan inay gantaalo la bartilmaameedsadaan horjoogayaashan oo xilligan ku baxsaday dooni aad u dheeraysa oo calanka argagixisada iyo sidoo kale calanka dawlad Carbeed uu ku sawiran yahay haddaba waa tuma dawladda Carbeed waxaa xaqiiqo ah in kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalamaya koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya 15 sano ee la soo dhaafay aysan garab la'aan ahayn dawladda shisheeye ayaa garab siinayay waxyaalaha la yaab kale argagixisada lagu arkay waxaa kamid ah dharka kabaha ay xirtaan cimaamadaha iyo sidoo kale tuutaha ay xiran yihiin dhammaantood waa sajal waana bacdi kooxaha argagixisada oo go'doona sidee ayay u heli karaan dharkaasi iyo sidoo kale markaasi tuutayaashaasi waxa xaqiiqo ah in doonyo ay sanad walba iyo bil walba ay argagixisada u keenaan cuntooyin raashin isugu jidha dhar kabo iyo sidoo kale agab dagaal ama qalabka ciidamada oo dhan waxaana la arkayaa afayeenka argagixisada oo wata booshash iyo sidoo kale dhar cusub oo bacdi ah oo sajalaysan oo ku sajalaysan yahay calanka argagixisada haddaba wadankee ayaa argagixisada taakulaya wadankees ayaa calankiisa lagu arkay dawladda dalka Qatar ayaa lagu arkay calankeeda argagixisada taasina waxay muujinaysaa in Qatar ay Soomaaliya lugooyo ay ku ahayd sidoo kale markaasi argagixisada la shaqeynaysay Qatar inay argagixisada taageerto lana shaqeyso waxa cadeyn kugu filan markii horjoogayaasha Taliban iyo Mareykanka ay ku heshiisayeen gudaha dalka Qatar waxaana Taliban markii ugu horeysay ee Mareykanka ay heshiiska la galayeen ay xafiis ka furteen dalkaasi Qatar sidoo kale Qatar waxay casuuntay afayeenkii sidoo kale horjoogii ugu weynaa Daesh ee ka dagaalamayay bariga Soomaaliya gaar ahaan gobolada Puntland Sheekh Maxamed Cabdi Atam iyadoo sanadkii 2013 uu isku dhiibay dawladda Qatar halkuu isku dhiibi lahaa Puntland waxaana hadda guriyo waaweyn iyo qasriyo uu ku leeyahay halkaasi iyo Qatar
diyaaradaha Mareykanka iyo ciidanka danab ay adeegsanayaan waxa ay duubeen doomo fara badan oo ay leedahay dowladda dalkaasi Qatar sidoo kalena markaasi uu ku xardhan yahay calanka dowladda Qatar iyo sidoo kale calanka Al-Shabaab oo soo istaagay xeebta Gaan waana daqiiqado ka hor inta horjoogayaasha argagixisada Cali Dheere Mahad Karatay Fuaad Shangole aysan doonta ku baxsan ilaa ay hadda lama oga waxaana wararka qaar ay sheegayaan in doonidan ay u qaaday dhankaasi iyo magaalada Jilib halka warar kale oo soo baxay inay xaqiijinayaan in horjoogayaasha ay u baxsadeen dhankaasi iyo dalkaasi Yemen haddaba xogta dhexe ee markaasi la isugu imaan karo waa xaqiiqo in horjoogayaasha argagixisada xilligan aysan Soomaaliya ka baxsanayn balse qorshahooda ugu weyn waxa uu yahay inay saldhigtaan magaalada Jilib oo ah goobta ugu dambeysay argagixisadu ay qorsheynayaan inay ku mintidaan sidoo kalena ay kula dagaalamaan ciidamada militariga Soomaaliya khabiir sare oo ka tirsan ciidamada sidoo kalena aad u falanqeeya arrimaha militariga ayaa waxa uu xaqiijiyay in Al-Shabaab ama argagixisadu aysan difaacan doonin magaalooyinka waaweyn ee gobolada Bay, Bakool, Gedo iyo sidoo kale markaasi gobolka Mudug iyo Galgaduud sababta ayuu waxa uu ku sheegay inay tahay in horjoogayaashu ay doonayaan inay duurka Jilib ka dagaalamaan waana gobol istiraatiijiga dhanka dagaalka buuraley ayuu leeyahay sidoo kalena waxa uu leeyahay kaymo jiq ah oo argagixisadu ay muddooyin nafil caariga ah ay ku sii dagaalami karaan khabiirkan military ayaa waxa uu yiri waa in ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa dalaayadaha ku boodo loo daadgureeyo dhulka hawdka jiqda ah sidoo kalena markaasi ciidamada Kenya la kaashado in iyagana halkaasi ka soo galaan Jilib sababta ayuu waxa uu sheegay in argagixisadu dhammaantood xilligan ay doonayaan ay ku cararaan dhankaasi iyo hawdka Jilib sidoo kalena ay ka dagaalamaan inta aysan argagixisadu aadeen hawdka Jilib waxa loo baahan yahay in dhammaanteen aynu halkaasi markaasi diyaaradaha ku daabulna ciidanka militariga Soomaaliya halkaasina lagu daadiyo cuntooyinkooda oo sajal ah iyo sidoo kale markaasi biyahoodana waa in kumboos looga dhigo oo lagu baritaaro ciidanka haddii kale goor ay xeeray iyo fandhaal kala dhaceen argagixisaduna ay jiqda galeen sidoo kale aan laga saari karin ayaa Xasan Sheekh Maxamed u aayi doonaa khabiirkan militari ayaa xogtaasi la wadaaga militariga Soomaaliya isku soo wada dubo baxsadka argagixisada horjoogayaashooda iyo kala cararkoodu waxay ku soo aadayaan xilli Soomaaliya ay u tahay sanadkan 2023 sanad guulo waaweyn ah waxaana soo afjarmaya laba dhibaato oo Soomaaliya caqabad weyn ku ahaa midda koowaad waxay ahaayeen argagixisada ka dagaalamaysa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya kuwaas oo canshuurtooda laga biilo magaalooyinka Hargeysa iyo Burco ayna taageeraan maamulka gooni goosodka ah ee Somaliland taasi waa ay soo afjarantay oo waxa markaasi dagaal kula jiray ciidanka militariga Soomaaliya tan labaadna waxa uu ahaa qodob aan laga horgudbi karin oo ahaa Somaliland oo mar walba dhahaysay ma ogolan midnimada Soomaaliya dhulka iyaga Soomaaliya noo diido iyo dadkii gobolada waqooyi oo ku kacay iskana saaray sidoo kalena hal beel ku soo ururtay mar dambana ma dhihi doonaan waxaana reer waqooyi waana la gumaystay waana la xasuuqay maadaama iyagu ay xasuuqyo ka geysteen gobolada Sool Sanaag iyo Cayn gaar ahaan magaalada Laascaanoodna markaasi ay dab qabadsiiyeen oo ay gubeen dhammaan limintii ay sheegan jireen ayay isku fuuqsadeen hal 7 bilood oo ay dagaal la galeen ciidamada SSC taasina waxa ay keentay in laba qodob oo waaweyn ay Soomaaliya ka hor leexdaan waxaana Soomaaliya u muuqanaya ifafaalo wanaagsan mustaqbal iyo rajo muujinaysa gobonimadii Soomaaliya oo soo laabatay cadawgii oo la tirtiray argagixisadii oo laga sifeeyay guud ahaan dalka iyo argagixisa kalkaalku ay ugu horeeyaan maamulka Somaliland oo si cad u sheegay oo Muuse Biixi si cad fagaarayaasha u sheegay inuu yiri Kismaayo iyo xabar ma degayaan ilaa inta inagana laga foqayo taas oo muujinaysa in argagixisada ay taageeraan Somaliland sidoo kalena xiriir dhow ay la leeyihiin 15 sanana ay taageerayeen